iyo dhaqan iyo kobcinta nafta waxay u baahan yihiin istimraariya iyo mumaarasa waxa la yidhaha waxay u baahan yihiin joogtayn maanta marka lagu wacdiyo waad saxnaananaysaa caawa marka gurigii tagta waxaad leedahay waxaad u baahan tahay inaad naftan geed ku xidho ilaahay ka baqatid aroorta si waaga dambe markuu bariyo wixiiba midhba kama xasuusid marka waaga dambe bariyo walidaalika Soomaalidu waxay yiraahdaan wacdiyo weydba habeen baa lagu seexdaa bay yiraahdeen iyagoo uga jeedan waa markaa hore lagu sheegayo uri wax dambe oo ka sii dambeeya ma jiraan maxay naftu u baahan tahay markaas waxay u baahan tahay in hoggaanka loo hayo oo la kobciyo waxay u baahan tahay in la barbaariyo waxay u baahan tahay in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo dhaqanka fiican oo lagu ilaaliyo akhlaaqda wanaagsan oo lagu ilaaliyo tawxiidka waxay u baahan tahay naftu la daahir yeelo laga daahir yeelo amraad alqulub والنفوس xanuunada ku dhaca nafta in nafta laga ilaaliyo dulumaadkeeda iyo madmadowyadeeda in nafta laga ilaaliyo waxyaabaha tanjiisiye nijaaseeya in nafta laga ilaaliyo shahwaadka kuwa xisiga iyo kuwa macnawigaaba waxay u baahan tahay naftu in laga daahiro markaas gaalnimo shirki riyaa nifaaq waxay u baahan tahay in laga daahir yeelo naftu magacdoon iyo maamustoon naftu xubbul buruuz inaad muuqato bini'aadamku iska jecel yahay wala wacdina ku muuqo in waa hebel hebel lagu yidhaahdo aad soo baxdo naftu waa iska jeceshahay laakiin soo bixistu khayr ma leh waxa khayr la qofku inuu mutawaadic yahay oo ilaahay ku xidhayay baa khayr leh idan nafta bini'aadamka ay shaytaanku hadduu kaa celin kari waayo khayrka wuxuu isku dayaa khayrka inuu ku dardarsiyo adigoo khayrkii samaynaya haddana khayr bilaa ajra inuu kaa noqdo adigoo camalkiiba samaynaya inuu camalkaaga ka dhigo mid ikhlaas beelay ama mid magac iyo maamuus aad ku raadinaysay oo aan ilaahay agtiisa waxba aanad kaga helin bay nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh aakhiro kuwa naarta loogu horshido maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa buu nabigu yidhi ku wax bixin badnaa waxaa ka mid ahaa buu nabigu yidhi ku quraan akhris badnaa waxaa ka mid ah buu nabigu yidhi maxay ku jihaad dagaal badnaayo geesi ahayo jihaad ku dhintay saddexdaba naartaa lagu shidaa buu nabigu yidhi sababta markii nabiga la weydiiyeyna wuxuu tilmaamayay ka koowaad ilaahay baa wuxuu yidhaahdaa qur-aankii aan ku baray maxaad ku samaysay ilaa habeen iyo maalinba waa anigii akhrinayay buu yidhaahdaa waxa alla uu ku yidhaahdaa waxaad salaahdaa la yidhahda hebel waa nin qur-aan akhris badan deyntiina waa tii dadka ku yidhaahdeen magac cumbaad ku doonaysa iyo maamuus iyo hebel nin ka tajwiid fiican ama ka qur-aan fiican ama heblaayo say qur-aanka u qaybsan tahay jaayisad kasta iyadaa qaadata intaa unbaad ka rabtid deyntiina lagu yidhi buu ayuu alla ku yidhahda subxaana wa tacaala aniga agtayda waxba kuma yaalin kii adduunka badnaa baa la yidhahdaa maxaa waxa uu yidhaahdaa ilaah waanigii bixiyey wixii aad nimcay siisay waxaa lagu yidhaahdaa waxaad u bixinaysay waxay ahayd uun in la yidhahdo ninkaa hebel waa deeqsi hebel gacantiisu waa nin faxala oo gacantiisu kala baxsan tahay deyntiina lagu yidhi baa la yidhahda ilaah agtiisa waxba kuma lihid kii kale jihaadka ku dhintay waxaa la yidhahdaa waxaad u diriraysay uun in la yidhahdo ninkaa hebel waa geesi xaggu kaa xiga lagaaga soo dhici maayo deyntiina lagu yidhi baa la yidhahdaa idan xataa shaytaan hadduu kaa waayo inuu cibaadada kaa joojiyo wuxuu isku dayayaa markaad samayseen inuu ku dardarsiiyo ku dhinac marsiiyo oo wixii ammaanta ahaa ee ilaahay agtiisa wax lagaga helayo waxaan ahayn inuu waxaagii ka dhigo idan waxaynu u baahanay nafta inaynu ilaalino inaad naftu way salkay taagaysaa iyo madaxeed hoos u celiso ilaahay mutawaadic ilaahay aad u dhul dhigto walaalada aanay ka san taagin aad hoos u celiso magac iyo maamuustoona aanay doonin aad u diido naftu xuduudi nafs alanaaniya anaadu way tiro badan tahay inaad anaa oo dhan ka joojiso waxa allaale iyo waxa ay naftu rabto ay kugu qasbayso dhan inaad u diidid idan naftu waxa ay doonaysaa way tiro badan tahay meesha ay ku socotaana waa mahlaka waa dhul khatara waxa loo baahan yahay naftan hoggaanka loo xejiyo inaad xaasidnimada ka ilaaliso oo bakhaylnimada ka ilaalisid oo isla weynida ka ilaalisid oo inay naftaadu ku cajab galiso aad ka ilaalisid oo adduun jacaylka aad ka dhowrtid oo hawo jacaylka aad ka dhowrtid ilaahay wuxuu tilmaamayay qoladii jannada galisay maxaa la yidhi fa amma man khaafa maqaama rabbi wa naha an-nafsa 'an al-hawa maxaa ilaahay tilmaamay fa inna al-jannata hiya al-ma'wa janna haddaad doonayso waxay ku xidhan tahay wa naha an-nafsa 'an al-hawa waxay doontaba inaad diiddo البصري قبل يسمع محوك الشيء وخالف النفس والشيطان وعصيهما والرفي الشيطان ولقى عاصب لها
oo hadday isku kaadayaan buu yidhi wain humaa maxadaaka nusxa fatahimi xataa hadday shaydaan iyo nafis ku kaadayaan inay kuu naseexeeyaan naseexadooda xataa ka shaki buu yidhi waxaa ku sugan meel khatarun bay kuu wadaane idan waxaa habboon in nafta aad ka xakamayso waxay doonto oo dhan inaanay kaa helin waxay doonto o dhan hadday kaa hesho jabtay nafta waxay u baahantahay in la rabeeyo lagu rabeeyo tawxiidka ilaahay iyo ilaahay subxaana wa tacaala asmaa illaahi alxusnaa inaad dhadhansato tawxiidka ku rumayntiisa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah inaad rumaysato ilaahay inuu keliyihi waxaa ka mid ah inaad rumaysato ilaahay gacantiisa inay wax waliba ku jiraan haddaad rumaysato ilaahay gacantiisa inay wax waliba ku jiraan waxaad u baahataba isagumaad weydiinaysa haddaad rumaysato ilaahay gacantiisa inay wax waliba ku jiraan waxaad u baahataba isagumaad weydiinaysa